السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب اسكسو نقد وناكسن وأفادمو ومانتا يدي كسو نقطي أو تغانان فادنا ومانتا إيو قصو كالي رير قصو وإذا ضيعي بريهان ما أركتين ما إلا يابتين أنا ويابي مجودو أنا كوري جريبان كوراي لكن إلهي ويقسو ديتي خلاص مانتا وحاوسو نقضي قصوين كيني مانتا وحاندي ودا قصو مرغالي gabadh walaashayna gabadh muslim ah ka sheekay doona sheekadeeda iyo wiil muslim asaguna oo aan u maleynay inuu Chechen ka soo jeedo maanta noloshiisii oo dhan oo isbedeshay baan maanta in ka sheekay doona horta information badan laga ma hayo sheekadan laakiin waxa weeyaan intii yareed hadda aan soo ururiyay waa fahmi doontaan meesha maarta ay sheekadu ka socoto marka sheekadan waxay ka dhacday dalka Ingiriiska magaalada London gaar ahaan West London bay ka dhacday meel aniga noo dhowba qisadana waxay dhacdayna 24 January bishii hadda ayna soo dhaaftay qisadan saan ku sheegay London bay ka dhacday marka gabadha la yiraahdo Yasmin waxay ahayd hooyo laba caruur dhashay ilaahay u naxariistay maanta way naga hooseysaa Yasmin waxay ahayd hooyo bay ahayd laba caruur haysatay laba caruur oo waaweyn midna 16 jir midna 18 jir buu ahaa marka iskuulkii u socotay oo ciyaalkeeday iskuulka aruurtii isu raaceen Mondaydii Isniintii 24 January hadda soo dhaaftay aruurtii 9kii aroornimo marka meelaha marka ahayd iyadoo laamiga maraysa bati ilaaha u timi marka horta intaan idin sheegisay wax u dhaceen Yasmin waxay ahayd xaasbi bay ahaan jirtay ninkii marka ay kala tageen ay labada caruur u haysay markay kala tageen si xun bay u kala tageen oo raali kama u haysagu intii marka ay kala maqnaayeen lama sheegin intii kala maqnaayeen laakiin waxa la sheegay Yasmin inay ahayd gabadh divorced ah oo ay kala tageen ninkana waxa la yiraahdaa Leon baa la yiraahdaa Leon marka waxa la yiri 2 sano ka hor bay booliisku u sheegtay inuu nafta u keenay oo ay meesha ay taagan tahay uu taagan yahay waxa la yiraahdaa taas waxa la yiraahdaa stalking baa la yiraahdaa he was stalking every day meesha ay taagan tahay iyo meesha ay qofka la hadasho iyo telefoonkeeda waxaas oo dhan wala socday marka 2 sano ka hor waxay ogaatay inuu ninkeedii ay kala tageen inuu kamarado gurigeeda dhexdeeda ku xirayba marka maadaama laba caruur isu hayaan ogaadade ma kala fogaanayaan waayo kulay waa aabe marka caruurtii way is arkayaan haduu doono caruurtii buu mar u soo dusayaa iyadoo gurigii marta ka maqano waxay ahayd waliba qof wax baratay ahayd jaamacad bay ku jirtay oo master bay diyaarinaysay marka hooyo busy bay ahayd oo 24 hours guriga ma joogin marka waxa la yiri mar intuu guriga soo daba buu kamarada meelo badan ku xiray marka iyaduna may ogeen wuxuu hagaray emailkeedii telefoonkeedii buu hagaray marka waxa lagu ogaaday 2 sano ka hor bay u dirtay inaan ay saaxiib yihiin bay u dirtay oo sheegtay tiri waxaan ka baqayaa inuu idili doono waayo maanta waxaan ogaaday in uu nolosheeda dhan duubayay oo kamarada yar oo gurigeyga ku xirxiray emailkeyga macal socday marka wuxuu ogaa meesha ay marayso qofka la hadlayso maca gurigeeda dhexdeeda anything ay ka samayso guriga dhexdeeda wala socday marka markii ay ogaatay inuu waxa sameeyo isla markii booliiska u tagtay booliiska u sheegtay inaan ay saaxiibiyana message u dirtay waxay ku tireen ninkii waxa sameeynaya marka booliisku waxa la yiri oo hadaba lagu haystaa wax badan kama qabin waayo way u sheegtay oo tagtay waxay tir ninkan waa ka baqayaa kale waxaan ka baqayaa inuu idilo nafta iga qaado marka booliiskana maanta investigation baa ku socota waan idin sheegi doonaa sababta marka hadeen ku noqono wixii dhacay maalintii aroortii Mondaydii ama Isniintii 24 January sanadkan hadda bishii soo dhaaftay iyadoo iskuulka u socota waxa bindi baa lagu bilaabay marka ninkii weeyaan iyada qabi jiray intaas oo sano maartay daba socday nolosheeda dhan egeegii obsess ku ahaa stalker ku noqday baasagu mindi marka gelinayo oo laamigii ku dilaya meesha wadada leerka maartay maxaa traffic light-ka wiil taagnaa oo 16 jir ah baa arkay gabadhii inantii muslimka ahayd marka traffic light-ka marka wadii sawiraya waxay taagan tahay Yasmin waxay taagan tahay laamiga bay taagan tahay dhinaca dadka loogu talagalay inay ku socdaan marka nin waa arkay oo gaariga marka wato oo traffic light taagan baa wuxuu arkay gabadhii oo nin mindi ku bilaabay oo dilayay oo mindi gelinayo Yasmin marka ninka mindida gelinaya waa ninkeedii hore waa ex husbandkeedii baa mindida gelinaya marka wiilkan lagu magacaabo Abrahamna wuxuu taagan yahay traffic light-ka waa 16 jir isla markiiba markuu arkay gabadhii oo ninkan uu ataagarayo buu gaarigiisa intuu ka soo dhaqaajiyay meeshii buu labadiiba intuu u dhawaaday buu wuxuu ku baagay
Leon kii buu ku baagay gaadhigiisa oo jiirsiiyey markaa gaadhigii buu kii hoos galay ninkii Leon ka gaadhigii buu isla markiiba hoos galay gaadhigii wuu isbaqtiyey meeshii buu ku istaagay uu kasoo baxay markaa Abraham gaadhigii kasoo baxay isla markiiba booliisku la hadlay booliiskii wuxuu ku yiri arinta saas dhacday nin baa gaadhi jiirsiiyey oo qof dumara mindi gelinaya ninkiina gaadhigii hadda xaqoos ku hoos jira markaa wuxuu yiri dadkii meelaha joogay hareeraha deelay wala badan yahay waa aroor waa 9 wax weeyaan waa 9 in the morning oo aroortii Monday ay tahay waa busy dad iskuul u socda dad shaqo u socda dadkii oo dhan way soo wada careen wuxuu yiri oo markaa waxaan isku daynay inaan gaadhiga kor u qaadno oo aan ninka ka soo saarno laakiin wuxuu yiri waan ku guuleysan weynay markii dambe markaa booliiska la hadlay booliiska markaa la hadlay booliiska markaa meeshii markay yimaadeen isagu wuxuu islahaa si qof makhraati oo kale noqoday oo sheeks wax u dhaceen Abraham markii uu booliiska la hadlay wuxuu filayay in isaga la wareysto la yiri wax u dhaceen maadaama isagu wixii dhan arkay ninkiina de uu joojiyay gabadhiina ay dhinac taalo oo ay dig baxayso wuxuu sugayay inay booliisku isaga wareystaan laakiin halkii bay isaga ku qabteen oo yiraahdeen waxaan you are arrested bay ku sameeyeen way qabteen oo waxay yiraahdeen waxa lagu eedeynaya ninkan dhimashadiisa marka hadda maanta ninkii arrested weeyaan oo gabadhaas caawinayay maadaama ninkii kale dhintay gaarigii markuu jiidsiiyay xaqii hoose waati gaarigii uu ka soo bixi karo waay ninkii meeshii halkii ku dhintay gabadhii unfortunately iyaduna way dhimatay marka gabadhii ninku midida gelinayay kii midida geliyay meeshii bay ku dhinteen marka labadii qof meeshii bay iyagu meeda laga qaaday wiilkii kalena booliiskayba ka haystay oo u haysta murder charges ba la saaray oo dil maaragtay marka asaguna wuxuu leeyahay anigu ninkan ismaan lahayn dil mana aqoon laakiin maadaama aan gabadhan muslimka oo ataageranayay baan isiri anigu caawi kale muslim mu oran laakiin suusagu hadhuuto markuu defense-ka uu sheeganayo wuxuu leeyahay anigu qof muslim aan ahay marka wiilka la xilatan jir weeyaan wiilkan gaariga jiirsiiyay lawyerkiisa wuxuu yiri magacayga fulka amarta lama yaqaano waxa loo yaqaanaa just Abraham waxaana anigu ma hubo laakiin waxa la yiri Abraham waxa weeyaan wuxuu ka soo jeedaa Chechen waana nin muslina fariina uu soo firay lawyerkiisa wuxuu yiri anigu wiilka markaa uu hadlaya wuxuu yiri anigu waxaan islahaa gabadha qofta dumarka ninkaas uu mindi gelinayo baan islahaa caawi laakiin anigu ula jeedo maan doonay ninkan inaan dilo just waxaan doonayay ninkan mindida dadka gelinaya suuna qof kale u gelin adiguna halka maartay ku jooji marka waxay noqotay just isla markiiba waqti iguma qaadan inaan fikiro isla markiiba wixii aan maskaxdeeda ku soo dhacay waxay noqotay maskaxdeeda markaan arkay ninkan waxa uu sameeyo gaarigii baan ku dhuftay marka sharciga xaqana waxa weeyaan dad qof dishiday markiiba waxa lagu dhajinayaa murder charges oo waxa weeyaan murder waxa weeyaan qofku markuu maartay ku tala galo inuu qofkaas uu dilo oo kasoo fikiro ama mindi soo qaato hadda oo soo iibsado kale marka maadaama ay wixii markiiba isla markiiba meeshaas ay ka dhaceen unan ninkan aqoon waa khalad horta laakiin maanta xaq darrada aniga saan u arko kulay idinku maartay waa fahmi doontaan wiilkan isiri gabadhan caawi ba maanta isaga hadda jeel bugalaya jeelka hadda uu ka soo baxay laakiin maxkamad baa hadda la saaraya oo la leeyahay ninkan waa dishay dilkii ninka gabadha dilayay isagu ahaa ninka dilaaga ah wiilkan kale 16 jirka ah ba maanta noloshiisii ay baaba'day waxa dad badan ba horta petition saxeexay oo ka soo horjeeda oo la leeyahay maartay waa khalad in ninkan wiilkan islaha gabadha caawi in waa khalad in la xiro oo waa in laga soo saaro jeelka hadda jeelka waa laga soo saaray laakiin wuxuu sugayaa in maxkamadda la saaro maxkamadana waxay oran doonto ilaahba og moogtay kale horta waa in la soo socodsiinaya arintan hadda aan idka sheekeeyay waxa weeyaan waa mid maarta halisa waayo maanta waxaan u arkaa dad badan hadda oo sheekadan dhageysanaya ama akhristeen ama ay maqleen hadhowto waxaan umaleeyaa sida ninkaas oo kale ma sameyn doonaan oo dad badan ba hadhowto ama qofkii loo dilay daawan doonaan waxba kama qaban karaan waa laga dhaaqaya marka it's very sad wax weeyaan waa wax naxdina aniga hadda maanta qof dumar aan ahay dad badan oo marka ama garanaya ama aanay garanayn ba intay caawi lahaayeen ba iyaga toodi bay ka baqi doonaan waa fahmi karaa dad ba oran doona hello like xaruur baan haystaa inaan qofka aan aqoon intaan caawin lahaa oo aan hadhowto jeel geli lahaa nolosheeda ma baabiinayo marka dad badan ba hadhowto is oran doona no ma caawinayno maxaa anigana maartay igu qofkaas haduu qofkaas dilayo meesha inuu ka cararo marka waxay noqon doonaa dad aan nixin oo aan diinta islaamka waxaas waaba ka soo horjeeda uma qof haddii aad aragtay qof laga gardaran yahay waa inaad caawisid waa inaad runta sheegtid waa inaad daacad noqotid wixii oo dhan marka corruption baa meeshii maartay
nooc kala soo baxaysa marka arintan sheekadan markaan aan ku fikiraan yiri okay dadkayga maartay aan la wadaago wax weeyaan waa arin halisa ninkan hadii uu marka hada jeelka uu galo 60 jirka waliba waa dhalinyaro weeyaan just because gabadha ee muslimka because maadaama isaguna waa muslim wiilku uu isiri walaasha caawi maanta hada isaga noloshiisii way baabaaday haduu de kulli jeelku gali doona I don't know intuu gali doono laakiin dad badan baa hada u dagaalamay isaga oo le maartay waa xaq daro waa ninkan de murder charges in la saain maartay lagu qabto ma aha haduu ugu badnaato waa in manslaughter waa qofka manslaughter waxweeyaan hadii aad maartay aad ula aadan ku talagelin inaad qofka dishid laakiin laga yaabo hada kale waa isdagaasheen oo kale suuq maartay qof baa isku dagaasheen qofkaan ma taqaanid ee just fed bad ku dhufatay qofkii meeshii ku dhintay marka qofkii haduu marka dhinto lama oranayo waa murder charge because qofkan ma aqoon ba waxa lagu oranayaa oo maxkamadda lagu saaray waxa la yiraahdo manslaughter waa ka yartahay marka sanada yar baa lagu siinaya laakiin si kastaba wiilkan miskiinka hadii la yiraahdo maca manslaughter weeyaan oo maxkamad la saaro oo jeelka uu galo ama 10 sano qaato ama 5 sano qaato wax yar maaha marka ilaahay maartay ajar weyn ha siiyo kulay ifi aakhiro maartay qofka de waa la miisaamiya tii marka waxa weeyaan maanta aakhiraba maartay sugi doonta oo de ilaahay maartay ilaahay u naxariisto hadii de waxa ku soo socda maartay ay badan yihiin sanado badan la xiro kulay horta noloshiisu isbedeli doonta forever marka idinkana basaa u aragtaan wiilka ma la xir lahaa mise kulay anigu waxaan u malanayaa waxa badnaan doontaan in de maadaama waliba wiil muslim yahay de oo gabar kale muslim caawiyay kulay waxaan u malanayaa waxa oran doontaan waa de waa xaq maaragtay in la soo daayo laakiin hadana naf kale dilay in kastoo islahayn dil de ninkii maaragtay gacantiisu maaragtay gaarigiisu ku hoos dhintay marka arinta saa u aragtaan asxaabta ila soo socodsiya insha Allah xaq hoose waxaan isku arki doonaa video kale insha Allah salaam calaykum